kulanti wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan iyo sidaa u dhantihiin kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ka wareysan doono saaxiibkii cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir kaasoo ku saabsan ardayda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. wareysigana bal cabdiqaadir marka hore kusoo dhawaad wareysiga iyo bal arintan maanta ugu horeyn su-aashaan ku weydiinayo waxay tahay cabdiqaadir markii ugu horeysay bal ardayda Soomaaliyeed halkan sidee u yimaadaan bal noogu sheekay. run ahaantii ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan ku sugan waa arday cilmi ahaan marka laga hadlayo waa ardayda ugu aqoonta fiican ku sugan dalalka carabta Suudaan ardayda ku sugan waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow ilaa 4,000 ardaydaasna run ahaantii waxaa badankood soo dirtay dowladda federaal halka kuwa kalena ay ku imaadeen munadamaad oo dawli ah ay soo aqbashay sida bangiga islaamiga ee caalamka. ardayda Soomaaliyeed marka la soo aqbalo ay soo gaaraan magaalada Suudaan waxaa soo dhaweyntooda aad uga qayb qaata ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan. ururkaasi waxa uu kacaa sidii ardaydaasi marka ay soo gaaraan magaalada Khartoum uu hoy u dejin lahaa una fududeyn lahaa hawlihii looga baahnaa ee jaamacadda ay ku aadi lahaayeen. haddii tusaale ahaan kaaga soo qaado tasjiilaadkii ama tasjiilka markay tasjiilayaan jaamacadda iyo wadankii waxay ku joogayaan sharciga lagu joogay qaabkay u samaysan lahaayeen wadadii u mari lahaayeen meelihii xarumaha dawladda oo la rabay inay aadaan waxaa intaas oo dhan u fududeynayo ururka ardayda Soomaaliyeed. waa hagaag daawadayaal meel walba aad joogtaan barnaamijkii waxbarashadana isbuucan intaas ayaan kusoo koobayaa. waxaa igala qayb qaatay oo aan marti maanta noogu ahaa saaxiibkii cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir. TV aad ka daawanaysaana waxa weeyaan CMC TV ee magaalada Khartoum xafiiskiisa uu yahay. intaan barnaamij kan lamid aan hawada ku kulmi doono waxaan iskaga tagay sidaas iyo nabad geli.